inta badan waxaad arkaysaa rasuulka rag waaweyn oo leh baad arkaysaa oo nebiga ku dhaaranaya in magaalo oo kale xaram lagu tilmaamo amaba masjidul aqsa la dhaho xaramkii saddexaad lagu sheego oo kale qofku inuu geeri tamaniyo oo kale waxyaabo fara badan oo insha allahu tacaala aynu dul istaagi doono ayaa jirta. marka waxaan rajaynaynaa inaad muuqaalka nala dhammaysatid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddii ilaa idmo maanta waxaynu ka hadli doonaa ereyada sharcigeenna aan ku bannaanayn ama almanaahi allafdiya, lafdiyada aan diinteennu ogolayn in la isticmaalo ee aynu isticmaalno. waxaa jirta ereyo fara badan oo soomaalidu ay isticmaalaan oo aan sharcigeennuna ogolayn. kuwa waxaa jirta carabtu inala isticmaalaan, kuwa waxaa jirta ay iyagu gooni u isticmaalaan, kuwa waxaa jirta inagu aynu gooni u isticmaalno, kuwa waxaa jirta aynu wada isticmaalno. marka ereyada aynu isticmaalno ee sharcigeennu uusan ogolayn ayaynu insha allahu tacaala wax ka dhihi doonaa. ereyadaas waxaa ka mid a tusaalahaan qofku inuu dhaho oo kale waataan gaalnimo ku dhintaa haddii aan sidaa iyo sidaas samayn waayo, waa tii aan yuhuudnimo ku dhinto, ilaahayow caruurta iga qaad matalanba, waataan aabbaha iyo hooyadayba waayaa. allahuma mustacaan in magaalo oo kale xaram lagu tilmaamo amaba masjidul aqsa la dhaho xaramkii saddexaad lagu sheego oo kale qofku inuu geeri tamaniyo oo kale waxyaabo fara badan oo insha allahu tacaala aynu dul istaagi doono ayaa jirta. marka waxaan rajaynaynaa inaad muuqaalka nala dhammaysatid oo aad wax badanna insha allah ka faa'idi doontid, dadka kalena usii gudbin doontid. haddaba walaalayaal, waxyaabaha inala ka reebay waxaa ka mid ah qofku inuu matalanba u dhaho kale anuu beri ayaan islaamkii ka ahay haddii aan sidaa iyo sidaa beri ayaan islaamkii ka ahay haddii aan sidaa sameeyo. tusaalahaan anugu gaal ayaan ahay, anugu nasraani ayaan ahay, anugu yahuudi ayaan ahay haddii aan sidaa sameeyo. amaba hadday waxaasi dhacaan, arrintaas arrin bannaan ma aha. ilaahow gaalnimo igu dil, ilaahow yahuudinimo igu dil, waxyaabaha la midka ah qofkii inuu sidaasoo kale uu dhaho wax bannaan ma aha. nabigeena sal alla alay wasalam wuxuu yidhi man qaala inii bari'un min alislaam calaa amrin min alumuur, qofka dhaha anuu islaamka beri ayaan ka ahay arrimaha ka mid ah, fa in kaana kaadiban fa huwa kamaa qaal, haddii qofkaasi uu been sheegaya waa sidii uu yidhi oo bimacnaa beri ayuu islaamkii ka noqonayaa. wain kaana saadiqan lam yacud ila alislaami saalim, haddii uu run sheegayana islaamka kusoo noqon maayo isagoo markaa bad qaba oo fayow ma soo laabanayo. marka arrintaasi arrin walaalayaal la ogolyahay ma aha, ee waa in laga digtoonaado. sidoo kale waxyaabaha aan la ogolayn waxaa ka mid ah qofkii inuu ku dhaarto makhluuqyadii ka mid ah. wax makhluuq ah inuu ku dhaarto lama ogola. sida tusaale ahaan nebigii oo kale inuu ku dhaarto lama ogola. inuu dhaho nebiga ayaan ku dhaaranayaa amaba rasuulka. inta badan waxaad arkaysaa rasuulka rag waaweyn oo leh baad arkaysaa oo nebiga ku dhaaranaya, amaba nebiga iyagoo leh, ama ilaah iyo rasuulka iyagoo leh. arrintaas wax la ogolyahay ma aha. kacbada qaar ku dhaaranaya ad arkaysaa. in kacbadii lagu dhaarto walaalayaal ma banaana. ammaanadii in lagu dhaarto ma banaana. waataan aabbaha iyo hooyadayba waayaa, waxa weye in lagu dhaarto ma banaana. allahuma mustacaan waxaan banaanayn waa tii ilaahay caruurta iga qaada inaad dhahdid ma banaana. wejiga nebiga iyo ja-aha nebiga inaad ku dhaaratid ma banaana. wejiga ilaahay, wejiga rasuulka inaad ku dhaaratid, wejigii sayidka inaad ku dhaaratid ma banaana.
inta badan waxaad arkaysaa soomaalida beriyo hore weliba aada ugu badnayd iyagoo dhahay wejiga ilaah iyo wejiga astaadka, iyagoo ula jeeda astaadka sayidkii ula jeeda ayay ku dhaaran jireen. waaya iyana ma banaana in lagu dhaarto. qofku waxa kaliya la ogol yahay inuu ku dhaarto waxa weeye waa ilaahay iyo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa uu isagu leeyahay, sifaadkiisa ayaa lagu dhaaranayaa. laakiin wax makhluuqa xataa diinta ku dhaaran maysid. xataa diintii haddii lagu diiday inaad ku dhaaratid, maxaad kaloo sugaysaa? meel kaloo aad ku dhaaran kartaa ma jirto. dhaartayaan meelo kale lala aadin. arrintaas ha laga digtoonaado, ha la iska jiro. waxaa walaalayaal waxyaabaha aan loo galayn ka mid ah qofkii in masjidul aqsa uu dhaho thalithul xaramayn, waa xaramkii saddexaad uu ku sheego. arrintaas arrin la ogol yahay ma aha. masjidul aqsa waxa weeye xaram ma aha. magaalada qudusna xaram ma aha. islaamku laba xaram oo kaliya ayuu leeyahay. waxa weeye waa maka iyo madiine weeye. labadaa magaalo waa laba xaram. labadaa masjid ee ku yaala ee la dhaho masjidka xaramka iyo masjidkii nebiga, masaajidka loo yaqaano, labadaa masjidna waa laba masjid oo xarameyn la dhaho. masjid kale oo la dhaho xarameyn ma jiro. labadaa masjid ayaa xarameyn la dhahaa. magaalo kale oo la dhaho waxa weeye xaram la dhahaana ma jirto. waxaad arkaysaa wiil soomaaliya oo tuuladiisii jooga oo dhahaya xaramkii baan joogaa. ereyadaas baryahan aada bay inoogu soo badanayaan. war haddii la diiday waxa weeye in mataqaanaayey masjidul aqsa oo aynu ognahay inuu qibladii koowaad ee islaamka uu yahay, in xaram lagu sheego, inaad tuuladiinnii intaad tagtid aad dhahdid xaramkii baan joogaa, waa arrin khalada. waa arrin baryahan aada usoo badanaysa. arrintaasna waa in laga digtoonaado oo laiska jiro. arrin banaan ma aha. xaram waxa weeye waa maka iyo madiina. bimacnaa xaramna waxay ku yihiin waxa weeye waxaan banaanay in ugaadheeda la dilo, ma banaana. in dhirteeda la jarana ma banaana. labadaa magaalo waxa weeye. laakiin tuuladiina dhirtii waad ka dhammaysay, xaramna waad ku sheegaysaa. ugaadhi waad dhammaysay, xaramna waad ku sheegaysaa. xaram markaa waxa weeye waxaa ah labadaa magaalo bas iyo labadaa masaajid. halkaas haddii aan taana uga gudbo qodoba waxyaabaha aan banaanayn qofku inuu kale u dhaho ayaan banaanayn inuu dhaho ilaahu idil oo kale, oo uu tamaniyo geeri qofku inuu tamaniyo lama ogolaa. inuu dhibaata haddii qofka ay qabsato uu dhaho ilaahu idil, ilaahu noloshani dhaafi, arrintaas arrin la ogol yahay ma aha. dhibaato kastoo kuu dhacdaa ma dhahaysid ilaahu idil. waaya inaad naftaada dishidna ma banaana. inaad ilaahay oo idil dhahdidna ma banaana. sababtaa wax kaa horeeya ma ogid. marka waxa weeye hal mar kaliyaa la ogolyaha qofku inuu geeri tamaniyo, waa haddii uu fidno diintiisa uga baqo. marka aad diintaada fidno uga baqdid, geeri waa tamaniyi kartaa. laakiinse waxaad markaa lafteeda leedahay haddii ilaahay oo khayr ay ugu jirto dhimashadu idil ayaad leedahay. laakiin dhibaato yaroo kusoo gaadhay darteeda ilaahu idil, no, wax la ogol yahay ma aha. sidoo kale walaalayaal waxaan la ogolayn in makhluuqaadkii alfaada ilaahay lagula simo. adigoo aan kula simahaynin ilaahay xagga weyneynta, haddana inaad alfaadii kula simtid oo aad dhahdid lowla allah wa anta oo kale matalan ba inaad dhahdid haddaan ilaahay iyo adigu aydin jirin. ilaahay cidna lalama simi karo. ilaahay iyo adigu haddaydin jirin arrintaa ima suurto gasheen. adiga ilaahay iyo adiga mooyaane cid kale malihi. arrintaasna arrin banaan ma aha. inaad dhahdid oo kale haddaan ilaahay uusan doonin adiguna aana doonin, arrintaas ima suurto gasheen.
ama arrintaas saa ma noqoteen iyana arrin bannaan ma aha ee waxaa la ogolaya waxay tahay ilaahay cidna ha ku ladhin ilaahay marnaba horta cidna ha ku ladhin oo ha dhihin ilaahiyo sidaa ilaahay iyo hebel ha ku ladhin ilaahay cidnaba ha ku ladhin ilaahay cidnaba ha ku lifaaqin waxaad dhihi kartaa haddii maa shaa allahu huma shaaa fulaan ama lowla allah haddaan ilaahay uusan jirin huma anta adigu aadan jirin arrintaas huma kadib weeye bimacnaa haddii aan ilaahay jirin kadibna adigu aana jirin kadibna adigu aana jirin taa waa la ogolyahay laakiin inaad isla socodsiisid ee ilaahay iyo adiga aad dhahdid ilaahay iyo adiga taasaa la diidan yahay isku lifaaqaa la diidan yahay laakiin inaad kala dambaysidoo dhahdid ilaahay haddii uusan sidaas uusan doonin kadibna adigu aana doonin kadib taas waa la ogolyahay waaya sidoo kale walaalayaal waxaan la ogolayn qofkii inuu caayo sanadkii inuu caayo waktigii inuu caayo sanadkan waa sanad xun waa sanad habaar qaba maalintii inuu caayo saacaddii inuu caayo waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo aan la ogolayn sidoo kale lafdiga eebe culimo fara badan ayaa waxay diideen in god iyo eebe iyo alfaadaas in la isticmaalo culimo fara badan ayaa diiday sababtoo ah allah adiga iminka soomaali baa tahay inaad isticmaashid eebe adoo allah garanaya oo diin ku dhashay waxa weeya ilaahay magacyadiisa magacaan ahayn looguma wici karo magacyadiisa magacaan ahayn looguma wici karo marka maxaa eebe kugu wataa eebe maxaad u isticmaalaysaa allah isticmaal الرحمن استعمال انت صيام كسوكوبيا عشر كان 10 لميدا انت كل منه سيداسي نبتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.